nabadda wadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan jeclahay mar walbaba qisooyinka aan rajaynayo in cashar aad kala dhex bixi kartaan in had iyo jeer aan idinla wadaago. maantana qiso noocee ah ayaan idin wadaa. marka hore magacaygu waa Cabdirasaaq Bulqaas, halka aad nagala socotaana waa page-ka Bulqaas Media. haddaba qisada aan idin wado aan idin gudagalo. wiil iyo gabar ayaa isa soo aroosay oo ahaa markaa reer cusub oo markaa midoobay. wiilkii iyo gabadhii subaxii markii ay soo kaceen waxay ku nool yihiin markaa wadamada reer galbeedka had iyo jeer guryahoodu waa muraayado. subaxii markii ay soo kaceen oo ay quraacanayeen ayaa gabadha daaqada waxa ay ka aragtay reerka dariska oo dhar soo wartay ama dharka banaanka ku wartay. marka ninkeeda waxay ku tiri, bal eeg dharkaasi si wanaagsan uma dhaqna. dadkani waxay u baahan yihiin in ooma amaba saabuun wanaagsan ay soo gataan si dharka nadiif ay ugu noqdaan. ninkii waa uu eegay, lama uusan hadlin. haddaba maalintii xigtay ayagoo sidii si lamid ah quraacanaya ayaa haddana reerkii sidii dhar kale ay usoo dhaqdeen oo meesha ay ugu soo warteen. marka gabadhi ayaa mar kale hadashay. waxay tiri, wallaahi reerkan ma yaqaanaan sida dharka loo mayro, ma yaqaanaan. waxay u baahan yihiin in la baro sida dharka loo mayro. sababtoo ah dharka hadda waa dhaqna ay leeyihiin oo meesha ay kusoo wareen waa uskag, waa wasaq weeye. waxay u baahan yihiin in si wanaagsan loo dhaqo. gabadhii ninkeeda muusan la yaabin wiilkii, haddana waa uu eegay, wuu isaga aamusay. maalintii saddexaad ayay reerkii haddana dhar ay soo warteen. markii dharkii ay soo warteen ayay waxay aragtay dhar nadiif ah. waxay tidhi, maasha allah, reerkii yaa baray tolow, yaa baray sida dharka loo dhaqo. maanta dharkoodu waa nadiif, si wanaagsan ayayna usoo dhaqdeen dharka. ninkeeda inta uu fiiriyey waxa uu ku yidhi, saaka ayaan muraayadda daaqadda aan aada u nadiifiyey. gabadhii waa ay aamustay. qisadan waxa ay ku tusinaysaa inta aadan dadka eedayn amaba cid kale aadan waxba ka sheegin, marka hore naftaada dib ugu noqo oo adiga dib isku eeg. waayo inaad dad aad wax ka sheegto waa uskal, waa qurun, way urayaan. waxa aad ku tidhaahdo oo naftaada aadan waxba aadan ka ogeyn oo aadan ka warqabin oo laga yaabo adiga in aad waxa weeye aad ka uskag badan tahay baa macquula. marka Soomaalidu waxay tiraahdaa tiisa daryeela tu kala ku dara. inta aadan tan dadka aadan eegin, had iyo jeer bal taada dib isugu noqo oo is eeg. sababtoo ah eedaynta ama wax ka sheegidda dadka kale had iyo jeer waxa ay calaamad ay u tahay wax adiga kugu soo laabanaya ama qofka aad tahay wax ku sheegaya wey. markaad qof wax ka sheegto oo qofna uu kula joogo, qofkii aduu dib kuu eegayaa oo wixii aad ka sheegtay ma yihiin horta wax adiga dhankaaga aad ka saxday. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. waxaadna naga daawanaysaan page-ka Bulqaas Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kan, ha iloobin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday, hanaga ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay la wadaagaan oo ay uga faa'iidaystaan. wixii talo iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commenteska iyo sidoo kale dhinaca messageska. aad ayaad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. jimco wanaagsan. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.